Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabta qaaliga ah. Maanta waxaan idiin haynaa qiso aad u leeyaha badan. Qisadan waxa ay dhex martay nin iyo naagtiis. Ninku aad ayuu naagtiisa u garaaci jiray maalin walba. Maalintii dambe ayuu aad u garaacay, kadib iyadoo indhaheeda ilin ka buuxda ayay kusoo jeesatay, waxayna ku tiri waan ku dacweynayaa. Markaas ayuu u jawaabay, waxa uuna ku yiraahday yeytaa cidda kuu ogolaanaysa inaad baxdo. Waxa ay ku tiri ma waxaa moodaa inaanan kaa dacwoon karin haddii aad xidho albaabada iyo daaqadaha. Isagoo la yaabin arrinkeeda ayuu waxa uu ku yiri maxaad samaynaysaa? Kadib waxa ay ku tiri waan wixi doonaa. Isaguna waxa uu ugu jawaabay taleefanada oo dhan aniga ayaa haya. Si jees ayuu wuxuu ku yiraahday adigu waxaad karaysa samee. Iyaduna si toos ah ayay waxay u aaday suuliga. Marka ay u dhaqaaqday dhinaca suuliga, isaga waxa uu sawirantay inay rabto inay ka boodo musqusha. Waana uu cararay si uu u hubiyo inay daaqada musqusha rabto inay ka boodo. Waxay u taagna daaqada musqushaba. Waxa uu waayay wax dhaqdhaqaaq ama isku day ah. Kabacdi waxa uu si xoog ah u soo galay albaabkii. Waxa uuna arkay iyada oo dhulka fadhida. Kadib waxa ay ku tiraahday sharlaawayahow, waxaan kaaga dacwoonayaa kaliya midka aan ku dhaarto magaciisa. Uma baahni taleefanadaada iyo sidoo kale daaqadaha aad iga xiranayso. Kadib waa uu ka tegay isagoo aad u la yaaban hadalkeedii. Wixii la joogaba gabadhii waxa ay xiratay iyadu salaadeedii. Waxayna aad ugu dheeraatay sujuudii. Markii ay salaadii dhamaysay ayaa ay kor u taagtay gamcaheeda. Markaas ayuu ninkeedu u imaaday oo gamcaha qabtay kuna yiri kuguma filna miyaa intii adigu habaartay sujuudda. Kadib iyadu waa ay fiirisay eegma naxariisi ku jirto, aadna u daciif ah, ilintuna waa ay ka qubanaysay indhaheeda. Waxa ayna ku tiri ma u jeedaa waxaad igu samaysay? Waxa uuna ugu jawaabay isagu wallaahi xanaaq ayaa iga keenay, si ula kacaana kuma yeelin. Markaas ayay ku tiri anigu kuma habaarin, mana ku habaarayo. Habaarkeygu wuxuu ahaa mid aan ku habaaray shaydaanka. Ma ihi gabar ka tanbadanayso xanaaqo oo iska habaaraysa saygeeda, isheeduna ay ku dogsanayso dhibka gaaraya ninkeeda. Isaga aad ayuu u ooyay. Inta uu qabtay gacmaheedii ayuu ku yiri wallaahi baana kugu samayn doonin wax xumaan ah maanta kadib. Wallaahi waxaa tahay gabar aad u wanaagsan oo sharaf badan. Ya Allah, ninkan waxa uu aad u garaaci jiray xaaskiisa, iyaduna bal fiiri siday ugu dhibranayso, una ogolayn inuu gaaro wax dhibaato ah korkiisa.